السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkastoo fooxa loo adeegsado noocyo kala duwan, haddana wuxuu caan ku yahay in lagu udgooneeyo guryaha iyo meelaha kale la joogaba. Waxaana fooxa qaabka loo soo isticmaali jiray waqti aad u dheer. Fooxa laftiisuna wuxuu leeyahay noocyo kala duwan. Marka haddaba laga yimaado in udug ahaan loogu isticmaalo guryaha iyo meelaha kale la joogaba, wuxuu leeyahay fooxu faa'iidooyin caafimaad oo kale. Daraasad la sameeyay 2009 waxaa lagu sheegay in marka fooxa guriga lagu shido uu leeyahay maadooyin qofka u raacaya neefta, sidaana uu kula falgalayay jidhka. markaa kadibna faa'iidooyinka caafimaad ee uu jidhka u leeyahay waxa lagu sheegay wuxuu wanaajiyaa xaaladaha nafsaaniga waxaanu dejiyaa neerfayaasha jidhka naftana wuxuu ka dhigaa mid degan waxaana lagu sheegay daraasadda xilliga la sameeyay in marka fooxa qaabkan loo isticmaalo uu leeyahay maadooyin jidhka ka ilaaliya kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca sanbabada afka iyo caloosha sidoo kalena marka qaabkan loo isticmaalo fooxa wuxuu kordhiyaa awoodda dhiigga cad sidaa darteedna wuxuu u fiican yahay difaaca jidhka isagoo meeshana ka saara jeermiska dhibaatayn kara caafimaadka qofka waxaanu dawo ka yahay hargabka ku xumaada qofka iyo xasaasiyadda waxaanu sidoo kale guriga lagu shiday ka nadiifiyaa xasharaadka aanay ishu qaban karin ee ku dhex nool guriga ilaahay baana cudurka iyo caafimaadka bahaya